maamulka waxgaradka haweenka degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer ayaa si mug iyo miisaan loo taageeray khudbadii madaxweynaha Soomaaliland ka jeediyay shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye tanaasuladii muujiyay sidoo kale waxa ay dadweynahani hambalyo u direen musharaxiinta xisbiga kulmiye ee madaxweynaha iyo musharaxa madaxweynaha ku xigeen Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wana kuwan dadweynaha degmada Qoryaale oo ka hadlaya hambalyadaasi degmada Qoryaale waxaanu ku qabanayna xaflad lagu taageerayo madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye madaxdii uu doortay ayaanu ku taageeraynaa haddaanu nahay degmada Qoryaale hambalyo aanu hambalyeynayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo taageero aanu taageerayno musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye kan maanta suulinay aanu ku taageeraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaanu ugu hambalyeynayna waxa kale oo aanu hambalyeynayna oo aanu isagana aanu taageeraynaa madaxweynaha cusub ee mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynihii koobaad ee Afrika ay dhacday asagoo madaxweynaha ودستور كوه قال يهاي إنه شنطة سنة دبي صار شرحه هذانا كتناسلي سدو الصمايو صاحب بديسة هدف كالسياسة كهم بلينا شركة قلها دحاء كقب سومي عاصمة جمهورية الصومال هرقيسة لو دورنا أي مشرحين شنطة سنة صعطاء هم تلي دونا حسب يأكل وحن سلام يا أحمد محمد محمود سيلانيو مدحوينها الصومالي لان وان سلام يا مدحوينه مضانة صعب يقرأ halkan waxaanu waa degmadii Qoryaale waxa jooga dad badan oo 30 tuulo ayay xukuntaa degmadanu marka saaka aniga oo ku hadlaya 30 tuulo xukuntay iyo degmada afkeedii madaxweyne waanu ku hambalyeynayna Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waanu taageersanahay Absa Faar Cabdilaahi TV qaranka Soomaaliland Burco